إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay tahay taariikhda bisha 31 bisha koowaad 2022 waxaa maanta u fadhinaa kala fadhiga baarlamaanka oo lagu dooranayo madaxweynihii saddexaad ee galmudug anigoo ah guddoomiyaha koowaad baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa. waxaan rabnaa inaan ku doorano madaxweyne saddexaad oo aan u dooranay inuu yahay kan dadka iyo dalka iyo diinta wax u qaban doono. waxaa maanta noo madal ah xildhibaanadu u fadhiyaan in ay doortaan madaxweyne oo qabtiri kara baahida galmudug ay u baahan tahay inay qabtirto. u baahan yahay madaxweyne waa kan musharax cali aadan cabdi oo ah madaxweyne musharax u taagan xilka maamulka galmudug. farta taag si codka u dhiibato. xildhibaanka labaad cabdiraxmaan axmed maxamed farta taag. ayaantan waxaa ka jirta maamulka galmudug in madaxweyneyaasha ay soo bateen fartaag waxa la yiraahdo fartaag. doorashadan waxaan ku qabanoonaa fartaag waan hal qof musharax. ugu dambeyn doorashadeeni waa noo qarsoontay. waxaan xilka maamulka galmudug aan u dooranay madaxweyne cali aadan cabdi. waxaan soo dhaweyneynaa madaxweynaha aan halkan ku dooranay mudane madaxweyne cali aadan cabdi. falyatafadal madaxweyne soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمان مرتشرف كسوق بشيء حلوانada saxaafada kasoo qayb gashay doorashada galmudug ka dhacday. waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo qayb geliyay in aan ku guuleysto madaxtinimada galmudug. waxaan mahad iska leh xilwaanada si sharaf leh ii doorteen iyo martasharafka kasoo qayb galay madalna iyo marwooniya kusoo dhawaada madaxtinimada galmudug. haddii kadib madaxweynaha galmudug waa anigoo ah Mr. cali aadan cabdi ibraahim. waxaa midda kale waxaan ballan qaadayaa madaxweynaha ay ii doorateen inaan xilka aan kasoo bixi doono galmudug qaybtii cadaado ayaan ka soconaa. marka waxaan ii mahad celinayaa si aad ii doorateen.